waxaa jira ururo ilaa iyo hadda la dagaalamaya qalfoofkii siyaad barre isagoo aan ognahay inuu dhintay muxuu ahaa xilli hore ama talada uu ka tegey ugu yaraan 34 sano. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oon ku dul istaagayno hadal uu dhowaan jeediyey madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar isagoo xilligaasi ka hadlayay arrintii dawacalay ee ka dhacday dowlad deegaanka Soomaalida. sida aad soo daawateen clipka yar ugu horeeyay barnaamijkeena waxa uu ka hadlayaa inay jiraan ururo iyo dad wali la dagaalamaya qolfoofkii uu ka tagay Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre. haddaba arrintaasi dad badan baa siyaabo kala duwan uga hadlay u lafaguray uga faalooday anigana waxaan jeclaystay inaan aragtidayda ka dhiibto idinkana aragtidiina iyo wixii fikirkiina ah noogu reeba qaybta faallada ama commentiga barnaamijkana noo like gareeya noona share gareeya si uu dad badan u gaaro. mahadsanidin. aan idin gala marka aniga aragtidayda ahaan hadalkaasi horta hadal sarbeeba uu ahaa si gaarana madaxweynaha uu dadka u tusinayay in meeshaas dad gaar ah oo dadka dowlad deegaanka degan ee reer dawacalay aan ahayn dad kale oo arrintan ka dambeeya inay jiraan ayuu horta tooshka ku ifinayay. sidaad wada ogtihiinna dowladda Siyaad Barre oo madaxda ka ahaa markii ay dhacday wixii riday waxay ahaayeen jabhadahaasina waxay ku salaysnaayeen qabaa'il iyo qabiilo. markaan ka bilowno waqooyiga Soomaaliya ama hadda meesha loo yaqaan Somaliland waxaa ka dagaalamayay jabhad la yiraahdo SLM. jabhadaasi SLM markii Siyaad Barre dhacay waxa ay la wareegtay maamulkii gobolada waqooyi ayay la wareegtay iyada oo madaxdii SLM intooda badan oo cigaal ugu horeeyo Siilaanyo ku xigo oo Muuse Biixi ku xigo ay maaragtay soo hogaamiyeen ama ay soo mareen. oo halkaas waxaa ka dhashay markii Siyaad Barre meesha ka baxay maamulo jabhadihii Siyaad Barre la soo dagaalamay ay maaragtay ay dhiseen deegaano iyo qabaa'ilna salka ku haya. dhinaca Puntland waxaa ka dagaalamayay SSDF iyo jabhadii Cabdilaahi Yuusuf hogaaminay. Puntland baa iyadana lagu dhawaaqay Cabdilaahi Yuusuf waa madax ka noqday system maanta la yiraahdo Puntland oo maamul goboleeda oo dowlad goboleeda ayuu sameeyay. gobolada dhexe ilaa Muqdisho aagaasna waxaa ka dagaalamayay jabhadii uu hogaaminayay General Caydiid. waxaa la dhahay iyadana USC la dhahay General Caydiid baa hogaamiye u ahaa. isaguna dhul badan oo xilligaasi markii Siyaad Barre dhacay koonfurta u badan ilaa iyo Kismaayo ilaa iyo gobolada dhexe inta u dhaxaysa ayay iyaguna gacanta ku dhigeen. laakiin dhulkaas system kama hirgelin wax qabaa'il ku heshiina kama hirgelin. fowda sii socotay inay iyagu sii dhex dagaaleen in jabhadii ay iyagu sii kala baxeen in maaragtay balaaya halka ka sii holacday in hogaamiye kooxeedyo cusub ay ka abuurmeen koonfurta. marka dhinacan iyo koonfur galbeed waxaa iyadana jirtay jabhad la yiraahdo RRA oo ay lahaayeen dadka ku hadla afka mayga. waxaa hogaaminayay Allah u naxariistay Shaati Guduud ayaa maaragtay isaguna dadkaas u ahaa hogaan u ahaa. koonfurta Soomaaliya gobolada Jubbooyinka Kismaayo Bu'aale oo ah Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose dhulkan kale waxaa iyaguna ka dagaalamayay SPM waxaa hogaaminayay General Aadan Gabyow iyo rag kale oo badan oo wali maanta qayb kamid ah ay nool yihiin. marka sidaa u fiiriso marka jabhadihii noocaas ahaa maaragtay Siyaad Barre la dagaalamay ayuunbaa horta maamul goboleedyo laga dhigay. SSDF waa Puntland waxaa hogaaminayay Siciid Cabdilaahi Deni. SLM
maanta ciraa hogaaminaya shalayna muuse bixi baa hogaaminaya caydiid jabhadiisii dee ragga hadda xamar jooga iyo dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug iyo baa ka dhashay iyo mataqaanaa magaala madaxdiiyo dee maalin baa aad arkaysid iyadoo magaala madax ay tahay la leeyahay unukaale dhinacan koonfur galbeed waa aragtaa maanta haddii shalay shaati guduud uu hogaaminayay jabhad ay ahayd maanta waa dowlad goboleed laakiin waxaa hogaaminaya cabdicasiis lafta gareen waxaa imaatay jubbaland shalayto jubbaland SPM baa maaragtay ka dagaalamaysay SPM waxaa hogaaminayay generaal aadan gabyow iyo rag kale oo badan oo weli maanta qayb ka mid ah ay nool yihiin maantana madaxweyne axmed maxamed islaam baa dee jubbaland hogaaminaya marka yacni qolfoofkii siyaad barre ayaa lagu dul dagaalamayaa waxa uu u leeyahay dee wadankii jamhuuriyaddii wadanka uu ka tegay ishaystay nin waliba qolfoofka qaybtiisa intuu goostay haddana maaragtay uu dhibaato kala wado un baan u arkay inuu maaragtay ka hadlayo bal idinkuna aragtidiina ila wadaaga inaan qaldanahay waa laga yaabaa wixii afkaar ah iyo wixii maaragtay fahanana iyo wixii aan ka tagay qudheeda wixii aan ka tago waa hilmaamay ila wadaaga waa mahadsantihiin waxay idin sii deenayaa hadalka madaxweynaha ugu dambayn waxaan anagu tuunsanahay 1990kii xukuumaddii maxamed siyaad barre ee Soomaaliya ka talinaysa baa dhacday maanta haddaad gashaan social media dhammaan gobolladii Soomaaliya qabaayil baa islaynaya waqooyi ilaa koonfur waxay ka dhalatay ururadii mucaaradka ahaa ee hubaysnaa ee la dagaalamay nidaamkii kaligitaliska ahaa isaguba dhibaato badan dadka ku hayay arrintaasi waxay muujinaysaa in waxyaalaha hadda dhacaya laftigoodu ayna ahayn waxyaalaha hadda bilowday wax salka ku haya taariikhda hore ay tahay nacayb badan oo ku salaysan haybta yaa la abuuray waxaa jira ururo ilaa iyo hadda la dagaalamaya qalfoofkii siyaad barre isagoo aan ognahay inuu dhintay muxuu ahaa xilli hore ama talada uu ka tegey ugu yaraan 34 sano ka hor arrinta dacawalay dadka shidaya qaar ka mid waxaan aaminsanahay inay yihiin kuwa aan ka hadlay ee ururada ah ee weli aan ka bogsanin dhibaatooyinkii waagaa dhacay waxaan ugu baaqaynaa naca iyo qalfoof la dagaalanka siyaasadda ku salaysani inayna ahayn mid horumar iyo nabadna gaarsiinaysa dadka Soomaaliyeed way soo rafaadeen gaajo iyo saxariir baa ina dilay adduunka kamayna dambaynin haddaynu maaragtay ay nabad haysano marka inaan haddana nabadaas xoogga la saaro hadallada foosha xun waxyaalaha dadka kala fogeynaya lagu hadlayo dadka waaweyn ee mudakkarkiina iska ilaaliyaan social media dad badan waxa ku jira aan bislayn laakiin odayaasha iyo siyaasiyiintu inay ogaadaan wax kasta oo dhacay la isaga yimaado waxa hadda aad lagu hadlayay xasuuq baa ka dhacay meesha waxa kale oo laga hadlayay ciidankii liiga booliska waa xasuuqno waan ka adkaanay labada arrimoodna midun bay noqonaysaa marka haddii booliskii la xasuuqay maxaa loo xasuuqay oo loo laayeen bay noqon hadday iyagu xasuuqeenna ciddii xasuuqeen ee maatida ah yaynu baariyon wada ogaan doonaa waxaan ku kalsoonahay hal qof oo maati ah oo hubaysane ciidanka la dagaalamay aan ahayn halka inay kaga dhicin waan ognahay waan la soconaa si kastaba ahaatee colaadda laftigeedaba dhibaata hooyada ka barakacda meel ee xitaa dib u baxda ee dhibaatay ku tahay xukuumaddu waxay qaaday tallaabooyin shacabka waa shacabkanagii in aagga shacabka ku nool la gaaro gargaar loo geeyo lala fadhiisto gogol loo fidiyo waan ka shaqaynaynaa waxaan halkan ka cadaynayaa maanta inaan arrintaas in wax nagala qabto maadaama sheegay oo nidhi waxaan la kaashanaynaa hay'adaha kale ee noo dhisan sida culimada diinka iyo aqoonyahanka